war Soomaalida social media joogto waa waasheen siiba dumarkii social media joogay war xageeno wadaan walaalayaal war karaashkiina ma aha umada Ilaahay faraha ka qaada oo ayaga hadeer toodi haysa waa sababta marka muuqaalka idin kugu soo duubayo intaan hore ogeynay hadaba ogaada. Assalaamu calaykum maanta dhankaasi Landriskan la joognaa Landrisko waa idin salaam sharaf ikraam doorashii howl adag ba ku jirtaan Allah idin fuudeeyo kii qeyr idin kugu jirna Allah idin soo saara idin mataqaana idin kugu duceynaya sidoo kale waxaan idin kaga tacsiinayaa tacsidii ku timid dhammaan reer Somaliland iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed madaxweynihii hore Maxamed Maxamuud Siinaayo oo geeriyooday waxaan leenahay dabcan gurigiisu saxda buu u hooyday samir iyo iimaan dhammaan familkiisa iyo reer Somaliland iyo reer Soomaaliya Allah ka wasiyo maadaama nin la jecel yahay oo ahaa marka tacsida madaxweynaha intaasaan kaga gudbayaa laakiin se barnaamijkan waxa u soo duuba waxay tahayba isla tacsidaas reer Somaliland gashay iyo waliba madaxweynihii hore arrin ku tacaluqa social media labadan bari waxaad ku arkayseen ninkan dhalinyarta ah oo dabcan ah gudoomiyaha commissionka doorashooyinka Somaliland dabcan magaciisa lama yaqaan dadka dhan badan gudoomiyahan bay ugu yeeraan aniga xataa gudoomiyaha commissionka inuu yahay doorashooyinka gudoomiyaha doorashadan u aqaanay gudoomiyaha commissionka doorashooyinka inuu yahay sabab ka dambaysa ninkan marka gabdhihii oo dhan ba crash hebelo waa TikTok iyo social media dhan buu haystay even xataa waxa arkay comment Facebook aad loo wareejinayo trend noqday dadka dhan soo dhiganayaan oo gabardhaysa doorashada markii dhamaato sidii sheedaan la naariyaan lagu waayinay ta walaalo TV-yadii wax ka hadalo aan ku aragno TikTok-gaas u galaa war ninkan horta ma gabdhaha Somaliland kaliya jecel mise markaas kuwi kale waxay leeyihiin may Allah anagana waa ku jirnaa war adiga macnaha buuq xagaan fiiriya may quruxo amarkaaga jira ninkan yaan laga dab hadlin oo adigu ma sharaxdid adaaba ku soo bixi lahaa adaan ku dooran xaga marka TikTok tagtid ka wasi daranba Facebook ku soo noqonaysa waa la saysta waxba isciirsanay aniga karaash waxaan ku aqaanaa dumarka Soomaaliyeed xariif single gooleysan bay iyo qays qaysad iyo xariif single karaash ka dhigan jireen macnaha waa dabeecadda waa leeyahay sanadkii hal nin ay ku jabaan oo ayaga dhan karaash u noqda oo commenti arkaysa may karaash may indhahay may qurux ninku qurux badna ma sha Allah wake up to reality ana marka arintii indhaha ku haya ilaa waa barnaamij trendada ma ogtahay oo warbixin laga diyaariyo leedahay ba waxa dhacday tacsida madaxweyne Siinaayo madaxweynaha hore Somaliland Allah u naxariisto Facebook anoo jooga marka bakayla wuxuu soo qoray sidoo kale waxaan u tacsiyeenayaa gudoomiyaha commissionka doorashooyinka Somaliland waxaan dhahaynaa magacan gudoomiyaha commissionka doorashooyinka Somaliland soo ninkii dhalinyarta ay maalmahan social media la wareejinay ma barnaamijka aan dabagal ugu kacay marka muuqaaladiisu dhan baan dabagalay xagga ka hadda ma meelaan mara helaya meel aan mara heli maayay luuqa aan ka soo hayo quruxo amarkaaga jira de shaqadiisa faraha ka qaaday ninka warbalaaye adigu is ciirsanaysa oo saas ugu waxba ku horgo'anba markii dambe muuqaalada waxaan saas u meereystaba markii dambe aan ka dulacay ee dul leeyahay ninkan single miya waxa ay haysaa marka hadda haysaa ribalay u gal may ina siilaayo qaba waxa istiri hal commenti وحوجها هوس كسيبي نقول كرتها بين نقول كرتها حتى أنا رادين كلام سيوه مدة كلام عندنا سير رادي إلا إن ماشي وجامع ماشي بلاش تيم كراشة ماشي سعر سنة موقت جام وعيه دور كلا سوا قرطي هرت قروحوا عن حاسمي وليه ربلاي إنا سيلا يقبع وحقيقة صدمك وركي عن فيسبوك شو أركي يو كومنتينا ضد كان ربلاي وقلاي مركا أركي وحقيقة صدق war balaay in karaashta war dumaro islaan matiin war ninkaas hadda culays haysta wadan dhan buu rabaa inuu kala saaro oo kala badbaadiyo oo cadaalad u sameeyo tiisa haysata taasina waa u sii dheer tahay oo odayga sadugiisana tirabiba u timid Ilaahu naxariistay gabadhii uu qabana iyadaba taasi u taala war karaashidan iyo buuqan ay social media la wareegsan ka fariista war xageen noo wadaan war Soomaaliyeed war dumaro war xageen noo wadaan war hadda gabadhaas teeda haysataayo ninkaasna tiisa haystaay familada iyo marka waxa xaar caadi xaar naga daaya ilaahay ka cabsadeen macnaa yani even hatta dumarka hadda joogo inaysan xaaladooda normal ahayn waxa ku ogaanaysaa gabdhihii social media 2017 isticmaali jiray xariif markii laba gabdhood markii walaa crash soo qoraan gabdhaha kale oo u gambin jireen macnaha ayagoo laga yaabo hatta inay normal ahaan ku haystaan waaba ka dhici jireenba
walaalo hadda isma cari xataa isma cariirinay ka hor ii banee ha soo fariiso ha way naga badan yahay war kaalaya war xataa hadii laba buuqas furan waa loo gambiyaa ka dhac haddeer waxaad karaashkii wadaan waa kaas haddeer reere tacsiye u taal oo howleysan oo culays dul saaran yahay oo waa kuwa idinka dhex fadhiistay mideeda kale inaan single kaliya karaash ku noqoto umaynaya waa furan tahay miyaa umuur xaasil horta sababtooda muuqaalkan kugu soo duubaa waxay tahay in intii dumar aan ogeyn ama intii barnaamijkaas waday aan ogeyn inaan gaarsiiyo familkaas tacsiba u taala tooda haysata filinkii haddaad hore umeedan ogeyn haddaad ogaateen muuqaalkan idin soo gaarsiiyey gabka dhaha mideeda kale waxyaala markaa shidanaysaan dhalinyartan tiktok joogo warbixintooda ay heli kartaan oo xaaladooda ka warhayn kartaan meelaha isaga shita laas qofku meelahaas mar hadduu ku jiro waxa ka ogtiin baa iska yar tan oo kale aad ku dhacaysa marka hadii idinku dhex boodey caawa xataa hadii waqti xaadirkan muuqaalka duubay kuwa isku qoray wallahi waa inta xasuusta taalo howleysan way marka meelahaas oo kale idin warkayeen ka dhaga laadiin meelahaas oo kale gab ka dhaha la yartiina kale youtuberadini fanaaniintiini social media tiktok dhex booda crash kana waxa ina cirbad oo anti crash loo aan soo saaran u maleena marka dama idinku wada dhufan doon sanad kasta waa taalan xariifa u taalan waa sicirsanaysa sanad kasta waayahay umuur xaasil kuma dheeraanay intaan ogeyn ogaada gabadhaas waxa way tacsiid u taal hadeer buuq iyo waxaan social media qofka social media jooga wixii uu arkayay culayska dulqaada familkaasna oo wada duceeno aabaha Soomaaliyeed marna madaxweynaha Soomaaliland marna gees umada Soomaaliyeedna aan mataqaana commentiga ugu wada duceeno ilaahay tiis mataqaana oo jannatul firdaws oo ka dhigo barnaamijkan ay qurux badan iga diyaaraan comment qurux badan like subscribe jaw waxaan idinku codsanayaa inaad u adkaysataan qarankiina aad u shaqaynaysaan si aad horeba ugu shaqaynayseen maantana way ka sii culus tahay amniguna wuu ka sii culus yahay halkaad markii hore u dhabar adeegaysay maalin iyo laba maalmood maanta waxaad ugu talagelaysaa intaa ay socoto doorashadu iyo intay socoto tirintu iyo intay socoto ku dhawaaqistuba in dhammaan heegan buuxa aad gashaan amniga aad ilaalisaan u dhabar adeegtaan cid wal muwaadin kasta oo idinku xadgudba aad u dhabar adeegtaan laakiin ciddii qalalaasay wada fal dambiyeed wada aad gacan bira ku qabataan biidnillah qodobka dambe waxa weeye askariga ilaalinaya goobta ee kadinka taagan mas'uuliyado badan baa saaran mas'uuliyadda koobaad waxa weeye inuu amniga goobta ilaaliyo isaga oo kadinka taagan goobta gudaheeda wuxuu soo gali karaa marka gudoomiyaha goobtu amro ee ay gudaha ama arrin ka timaado ama baahidii ciidanka looga baahdo mu gali karaa ee askari gudaha gali karaa amar la'aan ma jirto